Boqorada ingiriiska Queen Elizabeth waxaa jira laba wiil oo ay ayeeyo u tahay. Labadaas wiilna waa dhaxal sugayaal. Magacyadooda waxa la kala yiraahdaa William iyo Harry. Waxa dhashay boqoradii hore ee Diana, taas oo ku dhimatay shil baabuur oo ilaa iyo hadda la garan la'yahay shilkaas in uu ahaa mid ku talagal ah iyo mid si kadisa u dhacay. Maanta adduunka qof kasta waxa uu jecel yahay inuu noqdo qof dadka oo dhan ay ka wada dambeeyaan, inuu noqdo qof madax ah oo dadkooda qadariyaan, inuu noqdo qof lacag haysta. Diana waxay ahayd boqorad, laakiin dhibaatada iyo murugada ay ku noolayd ayaa ka fara badnayd tan wejiga hore ee laga arkayay. Qosolka yar iyo welibana dhoola cadaynta ay dadka u muujinaysay ayaa ah mid dusha sare keliyata laga arkayo, laakiin qalbigeeda waxa ay ku haysatay xanuun fara badan iyo welibana murugo fara badan oo uu sabab u ahaa ninkeedu. Heer ay gaadhay xitaa in ay isdisho. Waxa ay ku fikiri jirtay markasta in ay isdisho. Diana waxa ay ku noolayd nolol cidhiidhi ah oo bilaa farxada keliyata. Way dhoola cadayn jirtay iyadoo dadka u muujinaysa inay faraxsan tahay. Sidaas si la mid ah Harry, xaaskiisa ay dhibaatadaas haysataa, dhibaatadan oo hore u haysatay hooyadii. Harry marnaba ma aha mid u ogolaanaya sida hooyadii ay u qalbi jabtay iyo welibana dhibaatadii ay ku noolayd inay xaaskiisuna ku noolaato. Waa uu diiday. Qisadani waxa ay ka dhacday boqortooyada ingiriiska, taasoo welibana maalmihii ugu dambeysay social mediaha la isla dhex maraayay. Waxa la waraystay boqorada wiilka ay ayeeyda u tahay Harry iyo welibana xaaskiisa oo fashiliyay waxyaabo badan oo qarsoona. Waxa ay sheegeen cunsuriyeynta lagu sameeyay Harry iyo xaaskiisa Meghan, iyadoo welibana lagu cunsuriyadeynayo inay gabadhani tahay gabadh madow ah oo ka soo jeeda halkaas iyo Amerika. Waraysigan oo dhawaan laga qaaday iyagoo welibana ku sugan xaggaas iyo Canada ayay wax kasta ku fashiliyeen kuna cadeeyeen hadda ka hor. Sidoo oo kalena Harry hooyadii inta aanay dhiman ka hor ayaa waraysi sidan oo kale ah laga qaaday. Waxa ayna tiri, Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. runtii Diana, Harry hooyadii waxay ahayd gabadh ku noolayd nolol aad u adag, nolol bilaa farxada. Waxa ay qarsan jirtay markasta xanuunkeeda iyo dhibkeeda. Waa hordhicii qisadan ka dhacday boqortooyada ingiriiska. Waxa idin soo tabinaysa waa anigoo ah Nadra Siciid. Queen Elizabeth iyo welibana faamiligeedu waxay cunsuriyeyn ku sameeyeen Harry xaaskiisa oo ka soo jeeda xaggaas iyo Amerika dadka madmadow. Arrinkan ayaa waxa uu soo baxay markii waraysi lala yeeshay Harry, waa dhaxal sugaha boqortooyada ingiriiska, iyo welibana xaaskiisa Meghan waa gabadh caan ka ahayd halkaas iyo Amerika. Waxay ahayd gabadh jisha filimaanta oo la jecel yahay, magacna ku dhexle Amerika. Waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah wariyahan oo isaguna ah wariye ka shaqeeya ingiriiska, Meghan magaciisana la yiraahdo, ayaa waxa uu ka helay Meghan filmadeeda mid ka mid ah. Kadib waxa uu isku dayay in uu barto xidhiidhna la sameeyo. Meghan gabadhii aktarada ahayd waxa uu ka falowgareeyay Twitterkeeda oo uu ku darsaday isagoo la hadlay. Iyaduna si fiican ayay u soo dhaweysay sababtoo ah isaga laftarkiisuba waa wariye caana oo la wada garanayo oo ingiriiska ku nool. Meghan wada hadal kadib, Meghan waxa uu moodayba gabadhani in ay doonayso, isaguna damac ayaaba galayba. Waxa ay u sheegtay in ay imanayso ingiriiska, bartaas ayayna ku balameen sidii ay isku arki lahaayeen. Waxa dhacday habeenada ka mid ah Meghan iyo Meghan ayaa is arkay, waa wariyihii iyo aktaradii. Is arag kadib markii ay wada sheekaysteen waa ay kala tageen, laakiin Meghan iyadu waxa ay ku socotay xaflad kale oo lagu casuumay. Waxa dhacday xafladda marka ay tagtay barta waxa ay iska barteen boqorada ingiriiska wiilka ay ayeeyda u tahay. Run ahaantii Meghan may ahayn mid markaas garanaysa inankani inuu yahayba dhaxal sugaha boqortooyada ingiriiska. Isbarashadoodii kadib waxa loo sheegay inankani inuu yahayba dhaxal sugaha boqortooyada ingiriiska Harry. Run ahaantii waxa ay noqdeen laba qof oo isfahmay oo welibana si fiican isku bartay, jacaylna bilaabay. Muddo kadib ayaa Meghan waa wariyihii wuxuu ogaaday gabadhii aktarada ahayd Meghan in ay xiriir leeyihiin, iskuna wanaagsan yihiin Harry,
oo ah dhaxal sugaha boqortooyada amase Queen Elizabeth wiilka ay ayeeyada u tahay. Runtii saxafigani arrinkaas kuma farxin, aadna wuu uga cadhooday. Maalinkaas waxa uu bilaabay in uu gabadhan caayo, kuna caayo wargeysyada iyo welibana jaraa'id kastoo soo baxaya isagoo ku dhaliilaya gabadhan. laakiin iyadu ma ahayn mid dhag u dhigtay, waxa ay iska sii wadatay xiriirka iyo jacaylka ka dhaxeeya Harry. waxa ay go'aansadeen in ay isguursadaan. Harry waxa uu tagay ayeeyadii oo ah Queen Elizabeth, waxaanu u sheegay arrinkii oo waxa uu baray gabadhii uu doonayay inuu guursado kana soo jeeda Afrikaanka madmadow ee ku nool Amerika. Run ahaantii markii hore waa ay ka diideen, waxaana yidhaahdeen boqortooyada Ingiriiska marnaba ma gelayo qof madow ama dad madow ah. waqti dheer kadib Harry wuu ku adkaystay gabadhan in uu guursanayo, waana u hirgashay, waana isguursadeen. guurkoodii kadib maxaa dhacay? markay isguursadeen waxa u bilowmatay noloshii qadhaadheed iyo welibana qalbi jabkii faraha badnaa. run ahaantii gabadhan agtarada ah madowgana ah ee Meghan waxa lagu bilaabay isla markiiba in la cunsuriyeeyo, la iskana fogeeyo. markastana waxay noqotay qof la dhaliilo, laguna dhaliilo sinjigeeda iyo meesha ay ka soo jeedo. runtii may awoodi jirin amase may awoodi karaynin labadooduba in ay warkan sheegaan amase media ay soo hor fadhiistaan, sababtoo ah waxa bartaa ku dhimanaysa sharaftii boqortooyada Ingiriiska oo awoodba umay lahayn waxaan ay dareemayaan iyo cunsuriyeyntan faraha badan leh, dhibaatada loo geysanayo in ay sheegaan dadkana la wadaagaan. Meghan ayaa waxay ku oran jireen markasta, talow gabadhani ilmahay dhali doonto siduu u ekaan doonaa. waxa ay dareemi jirtay cidhiidhi fara badan iyo cadaadis fara badan in aanay kaba tirsanaynba boqortooyada Ingiriiska. run ahaantii dhibaatadan iyo dhaawacan gabadhan loo geysanayo waa uu la qaybsanayay Harry amase xaaskiisa waa uu garab taagnaa. dhibaatada lagu hayay Meghan ma ahayn mid ka kooban kaliya faamiliga dhexdiisa, xitaa social mediahana waa lagu caayi jiray wargeysyada oo waxaa ka kow ahaa saxafigii ay hore isku barteen, kaasoo kusoo dhaliili jiray wargeys kasta iyo welibana TV kasta. Meghan waxa ay go'aansatay maalin maalmaha ka mid ah in ay isdisho oo ay naftaba isdhaafiso, sababtoo ah may filanayn nolosha sidana in ay geli doonto marnaba. laakiin taasi umay suuro gelin. haddana waxa dhacday in ay go'aan wada qaataan Meghan iyo Harry in ay iskaba guuraan oo ay kaba tagaanba boqortooyadan, sharcigeedana jebiyaan iyaga oo ku noolaanaya wadamo kale sida Canada, oo ay u guuraan halkaas iyo Canada. waana u suuro gashay. waxa dhacday Meghan iyo Harry in laga qaado waraysi, taasoo ay isku leeyihiin ilmo keliyaata. markii waraysigan la qaadayeyna Meghan waxa ay leedahay uur yar oo aan la arkaynin. haddaba waraysigani wuxuu noqday mid dhammaanba bannaanka u soo saaray wixii ay qarsanayeen sanadahaas fara badan, mid bannaanka u soo saaray boqortooyada Ingiriiska xaqiiqada dhabta ah ee ku jirta, mid bannaanka u soo saaray cunsuriyeynta inantan amase gabadhan Meghan loo geystay iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa. run ahaantii Meghan may noqonin mid ka cabsata amase ka dhuumata xaqiiqada laakiin way qaratay wax kasta oo runta ayay sheegtay. Harry iyo Meghan waraysigii ay bixiyeen waxa ka mid ahaa iyagoo sheegaya cunsuriyeyntii lagu sheegayay kalarka carruurta ay dhali doonaan. run ahaantii arrinkani waxa uu noqday mid dhammaanba bulshadu la yaabto oo ay u qaadan waayaan. ninkii hore ee ay isbarteen Meghan markii ay timi Ingiriiska ee Meghan wariyahana ahaa amase saxafiga ahaa, gabadhan marnaba kamuu harin iyadoo ay sanado badan kasoo wareegtay. isna markii waraysiga laga qaaday gabadhan ayaa waxaabuu yidhiba, anigu maba rumaysanaya gabadha yar hadalkeeda oo waaba beenteed, ismana dili karto. waa wax ay ugu tala gashay in ay sharafta iyo welibana karaamadii boqortooyada dhulka la gasho iyadoo welibana ka haysatay Harry. If people want to believe Meghan Markle, that's entirely their right. I don't believe almost anything that comes out of her mouth, and I think the damage she's done to the British monarchy and to the Queen at a time when Prince Philip is lying in hospital is enormous. laakiin Meghan cid hadalkiisa maqashay ma jirto, isagana shaqadii ayaa laga eriyay waqti xaadirkan. waaba bilaa shaqo ninkaasi oo hadalkiisa ayuuba ku waayay shaqadii. arrinkan ayaa ilaa hadda social mediaha haysta wax weyna ayay dadkiina la wada noqotay. Harry waxa la sheegaya sida oo kale inaanu kuba jirinba dhaxaltooyada amase boqortooyada inuu dhaxlo, waaba laga saarayba dhaxaltooyadii in aanu noqon karayninba
beritoole boqor keliyaata la siin doono darajooyin yaryar oo ka hooseeya halka walaalkiisii kale la dhashay William uu sugayay isagu boqor inuu noqdo iyo welibana isaga iyo caruurtiisuba daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan fadlan ha ka ilaawin inaad like saarto sida oo kalena asxaabtaada la wadaag qisadan adiga oo u sheer garaynaya waa anigoo ah Nadra Siciid